عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمان داودياشينا قيمها إيقايها نغمضنا وحان إذين لنا هاي مالين وعنا ونكسن مانتا إي موقال آد وعيسد بدن هليي زي حسين شيخ دل زي أيانا لجوغ إن سودو زي ودو هاتي أنا وقت ما تسمتاي وعدتان قد وعدو أنهم كأجيبي وانجرت إن زي مانتو وحان كهرلينا إن سبورتسكا إن وحان حوغا أنصاري دونا khilaafka soo kala dhaxgal xiriirka iyo sidoo kale inta heerka koowaad ee sportiska in awalan waxaan doonaynaa inaad asxaabta ama daawadayaasha aad u sharaxdid sportis imise xaraf ayuu ka kooban una kala macnay waad ku mahadsan tahay walaal waxaa jirta sporti dada soo alifay waagi hore waxaa jirtay tartama jiri waqtigii zamaanka jaahiliyada ahayd tartankaasoo ahayd xeraa jirtay oo dadka boqora ka isku imaaneen fiirsanayaan maxay raadaan in xero weyn lagu soo daa libax lagu soo day jiray fiirsa jireen waxa bedelay dibi haddana oo good loo dhigayo marka uu soo ordo oo dhinac laaga baxay marka dambe kaasoo ahay marka saddexaad waxa la keen laba nin in faras ku soo raacdaa waran isku qaadis boqorka ay firjireen marka afraad ciyaara la sameeyay ciyaartaan la kubadda cagta marka la alifay muraadaha laga lahay muraadkaasoo ahay sport iyo shaqo sportiga waa shan xaraf la soo gaabiyey haddaan micnay spirit power organization running training waa ninka ciyaaryaanka inuu horta dhiig leeyahay waa inuu awood leeyahay waa inuu orod leeyahay waa inuu tababar qabo waqtigayni ciyaara waxaa jireen waxaa laga xuli jiray heer tuulo heer degmo heer gobol heer seere heer qarnaa jirtay hoos guriga marka la dhisay hoosaa laga soo dhisay annaga waqtigayni cadale aadiyawaan balcad ruunurgo adiga meelahaas isku kaadeen tuulooyinka laga soo qaato orodada wiilasha gabdhaha laga soo qaadi markaas la xareey jiray marka la xareeyo intii ku xareysneed oo xulkii heer degme ahayd banaanka hadan cid kale heli jiray cidii ku xareys waa iska saari jiray markaas oo idoo heer gobol oo loo baratamay gobolka marka la xareeyo haddana waxaa la sameey jiray tijaabooyin oo heer xaafada la soo waca degmo kale la soo waca markaasay ciyaareen intii ku xar inta ka fiican tiraysaa saas ayaa hadda dhibkana ay wuxuu horta naadiyaalkii la badiyay heerka koowaad heerka labaad heerka saddex oo serie B serie C serie B serie A way nin serie B soo ciyaaray serie A marka uu yimaado kama noqon karo maxay raad serie B hadii uu soo laabtaa serie A ma ka ciyaari karo waa inuu wadan hoos ka soo bilaabo serie B oo ka soo oo laabtay inuu hadana ka soo baxo way in Hussein Sheikh Danzi waxa sheegtay in sportiska uu saddex heer yahay in maanta waxaan ka hadlaynaa heerka loo yaqaan A ama xarafka A oo kooxa waaweyn lagu tilmaamay inay ciyaaraan in A maxaa loogu jeedaa horta xarafka A macnaha waxa waaye A iyo B iyo C way heerkaas horta hoos oo bilaa heer C juniors way waa ciyaal yar serie B ciyaalka ku xigay serie groupka saddexaad way groupka saddexaad hadaa la hela xataa maxallu ba anaga degmadeena anaga gobolka shabeellaha dhexe haddaan nahay degmooyin badan oo rimaado aanoo simaan ha ahaatee joor waxaa loogu baahay hadday u bad 10 naadi ka badan horta baa qalto in laga sameeyo naadiyadii faraha ka badan oo faraha batay ciyaari horta hoos u dhigay sababtoo nin walbaba hal xaafada arkaysa 6 kooxood ka soo bixis maya xaraam way sida xaqiiqada 8 kooxood loo baahan heerka koobaad 8 heerka labaad 8 heerka saddexaad loo baahan yahay waan gartay in maxay tahay sharciyada loogu baahan yahay ciyaaryahanada iyo xiriirka ay ku dhaqmayaan sharciyada waxay tahay horta waxa waa meesha anshax waxa la discipline hadii uu jirin waxaan socon karma aadaab ciyaartooydu waa in akhlaaq leeyahay akhlaaqdaas uu leeyahay waxaa ku soo xigay ninkan oo asagana difoosa ama maxay raadaan taageera asan waa inuu edeb leh marka labadaas leedo akhlaaqdooda marka saddexaad ninkan garsoore markaas wax xukumi kara aadaab haday wax ma xukumi kara aadaab ma jirto horta waan gartay in waxa sheegtay in saddexdaas loogu baahan yahay in guddiga sportiska ee heer gobol iyo heer degmo in meeqa ay ka koobnaan karaan guddi ahaan marka tusaale ahaan xiriirka kubadda cagta degmada meeqa ay ka koobnaan karaan xiriirka waxay leedahay gudoomiye ku xigeen iyo xogeen way Sufyaan
markaasaa lagu daraa 7 ama 6 xubnooda lagu daraa xubno waa kuwaas laakiin gudoomiye xogeen iyo xogeen ala sameynaa xogeenkaas waxa waaye maxay yiraahdeen inka saddexaad oo ama qoraalkii u sameeyay iyo 7 qof in lagu daro waay markaas ay xiriirka degmada allee xiriirka kubadda cagta ee degmada markaas ay noqon laakiin damaba arkooyni bi xiriir magacaabano maxay yiraahdaan oo intaas ay ka koobi hebel ma arkin gudoomiye kaligiisa ordooya shaqeyno gamoon oo baalleena ma buu waay gudoomiye waxa uu matari karo waa in cid la shaqeyso la soo magacaabo wax magacaabis iyo doorasho ay xiriirka waa la doortay waa la magacaabay laakiin gudoomiye doorasho isku taga sidaas waay waan gartay in maxay tahay waxyaabaha kooxaha laga doonayo iyagana ciyaaryahanada waxaa la yiraahdaa ninka hoggaanka u xiro ninka ciyaaryahanka waxaa loogu baahan inuu tababaraha uu ka dambeeyo tababaraha markuu ka garoonka la kula galimay garoonka waxaa xukumo kabtan kaas la rabo inuu ka dambeeyo wuxuu yiraahdaa kabtan kaliya uu kabtan yahay waay kooxdiisa uu yahay ana garsoor uma aha kabtana ku dhaa garsoore aniga maxay yiraahdaan naga fiiri mukul hadli kariyo may waa ka mamnuuc anaga markan ciyaar jin waxaan loo ninka dharka madmadooga alla hadlina tababaran ugu waan jirin lama hadlayo marka waxa way akhlaaq haday jirin wax jiri karo male in Hussein Sheikh Danzi xilligii hore sportiska marka uu socday in kooxaha soo tababar ma qaadanin iminka waxaad arkaysaa iyada oo uu tartan jiro in ciyaaryahankii uu tababar imaanin ama tababar buuxda uu salahayn haddana waxaad arkaysaa inta badan ciyaaraha markay bilowda in muran iyo buuq ay hakiyaan maxaa keeni kara hakadkaas waxaa keeni karo ciyaaryaankii aan tababar qabin adkaysi hadduu jirin wax jiri karma saddex xalub ninka ciyaaryaanku xalub adkaysi farsamo xeelad adkaysi aan jiri maanta ciyaarta loo soo labisa oo igmaana garo markaas dagaal sameeyay arbiter la dagaal mar ciyaarto la dagaal iyo nuqaha tababar la annaga waxaa horta ka mamnuuc in tababar imaan waay in garoon la geeyo waa ka mamnuuc hadda annaga dib ku xay tababar ma sameeyaanbo 12 saac askaba gacanta ku wadaas kulli waxa usoo alameenta u socday waa orda dhamaan loogu talagalay hal saac iyo bar in fiyaatadeeda ku jirta la rabay adkaysi farsamo xeelad technico fiyaato siyaasad ay leedahay saddexdaas kala maharaan haddii saddex mid ma qiimada aniga ciyaartooydan oo degmada jooga ama gobolka shabeellaha dhexe dhibka oo ka jiro isjiidka keena tababar la'aanta keenayso waan gartay in garsooraha in inta badan lama arka garsoora inta lagu tababaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyagana garsoorayaasha maxaa loogu baahan yahay inay soo maraan oo nidaam garsoorka waxaa loogu inuu tababar qaato laakiin waxa uu malqaal aan sida idaacada aan ka dhigaysanahay inuu maxay yiraahdaan mar dhaxdaas oo tababara garsoor iyo tababara koox in la qaaday hiiraan maxay yiraahdaan oo tababar ay ku soo qaateen taas waa ka warahayay waan gartay in si waxaad arkaysaa garsoorayaalka inta badan inay kaararka kama ugu baxaan sida rooso kaleente maxaa sababi kara in kaar rooso uu kama ku baxo ama lama filaan uu ku baxo waxaa keeni kara asaga oo tababar oo tuuriyas qabay laakiin tababar oo maxay yiraahdaan oo waxas qabay oo oral as qabay laakiin tuurin waxaa loo baahan yahay in garoonka tababar lagu siiyo ninka roosaale ninka jaalaha laguma degdego horta jaalaha roosaha badanaan waxaa loo baahan yahay in isdajiyo garsoorka naftirkiisa ciyaartooyda xanaaqa ahay xusula ku dhac halba ku dhacay waxaa loo baahan yahay maxay yiraahdaan waxaa loo baahan yahay naftirkiisa inuu dulqaad u yeesho hadduu dulqaad ay jirin waxa uu ma jiri karaa waan gartay enzim ugu dambeyn maxaad leedahay in bulshooyinka ku daawanaysa bulshooyinka waxaan ka daawanaa aniga waxaana hooyigii ciyaaraha hooyigii hidahay dhaqanka hooyigii kubadda cagta anna haddaan nahay shabeellaha dhexe waxaan leenahay ciyaartooydayna shabeellaha dhexe ciyaartooy wanaagsan waa jiraan waxaa jiraan dad jecel taageerada jecel tababar la'aan waxba lama sameyn karo ciyaartooyda waxaa loo in tababar ay qaataan tababar u gaar ah hadda dadkii tababarka aan u dirnay soo qaateen waxaa loo baahan in wixii la soo baray oo iyaga wiilashooda ay baraana loo baahan yahay aan hadda la soo tababar la soo qaato la iska dhigo may dhib male waa inay shaqeeyaan hawshii tababarka u soo qaateen ay qabtaan loo baahan yahay oo maxay yiraahdaan ninkii tababarnimo la soo baray ciyaar tababar garsoor ninka ay garsoorkani maxaa loogu baahan yahay dulqaad
dulqaad hal saac iyo bar waay ninkan ciyaartooyda waa xanaaqa wax walba u sameyn xusul hagaajiyo loo dulqaato roosaha iyo jaalaha lagu degdegina loo baahay badanaa la dejiyo tawa maxay raadaan waa iga baxay jeebka roosaha iyo jaalaha laba la kala kor jaalaha iskale jeebka gadaalna roosaha iskale saas oo intaa lagu degdegan boqolka boqol dejininka ka badani hadduu sameeymaan roosaha aad iyo aad lagu degdega maaha waa tahay kaasi waxa uu ah xuseen sheekh dalzey oo maanta ka wareysanayna heerka koowaad ee seere-eeda ee sportiska iyo ciyaaraha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyadoo inta badan ay qalalaasa ku dhammaadaan ciyaaraha ka bilowda magaalada jowhar waxaad naga daawanaysaan pageka facebooka wariye catooshare haddii aad youtube isticmaashan waxaad naga daawanaysaan barta youtube-ka ee wariye catooshare fadlan haddii uu muuqaalkan kusoo gaaro sii gaarsii asxaabtaada subscribe like shirka commentiga yaa naga xasdin farsamadu waa cabduqaadir maxamed yuusuf balaag inta aan dib ku kulmi doono barnaamijka kiisa xiga waa anigoo catooshare iyo xuseen sheekh dalzey oo idile sidaas ii nabadgelyo muuqaal dambe oo xiiso badan waxaana keeni doonaa waraysiyo aad u xiiso badan oo aad ku qanacda